shirka waxa lagaga hadlay qodobo aad iyo aad u muhiim ah oo lagu faaqiday laguna falanqeeyay siyaasadda guud ee dalka golaha wasiirada oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo suurtaagii xafiiska ra'iisul wasaaraha la iska hortaagay 27 bishan golaha wasiiradu si wada jir wuxuu ka muujiyay inuu ka xogyahay arrinta waxaanu ra'iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka kale waxa la soo saaray shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii la soo hortaagay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ciddii soo hortaagtay guddidaana waxa soo magacaabi doona ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale golaha wasiiradu waxa uu taageeray si buuxda u taageeray shirka wada tashiga madasha qaranka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaaruhu iyagoo u rajeeyay inay ka soo baxdo guul iyo inay hore u socoto doorashada qaranka waxa la isla gartay in la dardar geliyo doorashooyinka qaranka waxa shirka lagu ansixiyay caawa xisaab xidhkii 2020 ee ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xidhka sanadka 2020 sanadka 2021 wax la xidhi doonaa sanadka dambe sidoo kale waxa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyay si loo dardar geliyo amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyay iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon waxaana kulliba faafin doona wasaaradda amniga qorshaha cusub ee amniga caasimadda sidoo kale shirka golaha wasiirada waxa loogu mahad celiyay saaxiibadeena beesha caalamka ee inagu taageeray nabadda doorashooyinka iyo howlgudashada shaqada ra'iisul wasaaraha qaranka ugu dambeyn waxa aad looga hadlay oo baaqalkan looga daray arrinta abaaraha oo aad moodo inay aad u soo xoogeysanayso qayla dhaantuna ay iska soo daba dhacayso shirka golaha wasiiraduna waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka in ay wax la qabtaan oo ay u soo gurmadaan dadka baahan